السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن dadweynaha afka Soomaaliga ku hadla ee nagala soconaya Afrikada bari Carabta iyo daafaha kale ee dunida. Barnaamijkan waxa lagu magacaabaa xaqiiqada fanka. Waa barnaamij la mataana barnaamijka madasha hal abuurka iyo heesaga barnaamijka ku magacaaban. Waa barnaamijyo sida ay intiina daawata ma la kulantay aad ogtiin aan ku dabagallo oo ku gorfayno oo ku raad raacno oo baadigoob aan ugu gallo soo nooleynta heeladeeni iyo fankeeni iyo heesaheeni oo aynu dadka wada xasuusino guud ahaan in aanay dabargoyn dadkii ehelka waha intii tumi jirtay iyo intii heesi jirtay marka ay dadku soo fadhiistaan marka ay ku dhuftaan wax la oran jiray aadka xusuusta oo bad u laha barnaamijkan xaqiiqada fanka wuxuu yahay barnaamij ay niman dhalinyaro ah ku muujinayaan kartidooda in wali ay karayaan oo ay awoodaan in iyada oo la isor fadhiyo ay tumaan qaar kamid ah walxii muusiga ee la tumi jiray ay rag kale ama dumar kale oo dhalinyaro iyagoo in hor fadhiya ay qaadaan iyaguna heesii la qaadi jiray waxaan xusuusnahay oo aan aad u xusaya dadkeena maanta wixii hees la qaaday intii ka horeysay sanadkii 2000 laga soo bilaabo waqtigii balwada dagaalkii labada adduunka dhamaadkiisa 45 ilaa 40 waxa jiray heeso waxay kala lahaayeen sawrac iyo tilmaan heeso waxa loo jiray heesii qaraamiga ah heeso waxa loo jiray heesii dhexe heeso waxa loo jiray heesii dambe laakiin maanta dhalinyarada iyo dad badan oo waaweyn waxay yaqaanaan oo ay heesihii la qaaday 80kii 90kii 85kii 70kii 75kii waxa qaraamiga oo yaqaanaan guud ahaan laakiin qaraami ma ahayn qaraamigu heesii khaaska loo yaqaanay jawhara luula ay kamid ahaayeen kaar iyo laac iyo suudaan iyo dankeli iyo isku shuban iyo xaafuun iyo kuwa aan kookow oran karaynin ay kamid ahaayeen ayaa qaraami loo oran jiray heesaha kale magacyo lahayn maanta dadku qaraami bay u wada yaqaanaan balse aan qaraami u wada noqonin heesii dhaxa ayaynu dadka bari doonaa heesii iyaguna waqtiyadii sagaashamaadkii soo gaaray baan dadka bari doonaa kuwa dambena waynu bari doonaa macnuhu ma aha in aynu dhaliilayno inaynu eedeynayno dadka waqtigan fanka u helka dhalinyarada iyaguna waayadan calanka u shida shamaca u sida calanka matana u sida kuwana waynu u mahad celinaynaa waynu u mahadnaqaynaa way mahadsan yihiin laakiin waxaan leenahay bal hadda dar walba dhinacooda haloo arko barnaamijkan xaqiiqada fanka ragga hore fakirkiisa iyo u lahaa soo bandhigiisa iyo soo horfariskiisaba walxaha music inoo timi doona iyo ragga inoogu heesi doona baadaan skin baro cali gacal guuleed waa nin fanaana cali waa nin aad u sanqaryar aan hadal badnayn oo afkaaban aan aad loo wada arag oo meelaha la isku yimaadeen meelaha lagu heesayay marmar isagoo yar xishoonayno heesa mooyaan intaan ka ogahay aan aad ugu badnayn nin fanaan cod wanaagsan soo gaaray waliba fanaaninteenii hore waa bari waxna kala soo qabtay oo soo shaqeeyay cali gacal guuleed waan soo dhaweynayaa waxa ragga walxaha inoo tumaya kamid ah Ibrahim Faarax Jaamac oo mawjada ku magac dheer waa macallin ka tirsan wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Ibrahim taariikhda wuxuu ahaa raggii dhalinyaradii kooxdii iftin ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya wax soo bartay qoraalka muusiga ee loo qoro la baray hargeysa caan ku ahaa wali isagoo macallin oo tamaashiirtiisii wato ardayda wax u dhiga haddana muu ilaawin fanki iyo hawshii fanaaniintii danana qayb weyn ka soo qaatay Bishaar Salebaan nin dhalinyaro ah oo tuma isagu durbaanka aad iyo aad mataqaana bariyaha dambe u tuma Maxamed Miyir waxa uu kamid yahay ragga waqtigan iyaguna inoogu jira halkii odayaashii hore ee fanka ee kamanka tumi jiray la soo gaaray ay kamid ahaayeen isaga iyo Cabdinaas Macalin Caydiid baa waxa weey waqtigan Hargeysa waxa ku jira ragga aad iyo aad looga jecel yahay wuxuu inoo tumi doonaa cuudka kamanka Mustafa Macalin Caydiid waxa uu kamid yahay dadka farakutiriska ee tumaya walxaa si dabar go'aya waxbaan islaha malaha Hargeysa laga heli maayo violin baa leeyahay ma dhaxyar intiinaba waan soo dhaweynayaa waxaan mahadnaq gaara barnaamijkan ugu soo jeedinaynaa dhamaantayaba ninka lagu magacaabo Xasan Aw Cali oo Xasan Sandheere ku magac dheer Xasan Sandheere waxa uu kamid yahay dadka ku nool caasimada Hargeysa ee fanka u helka jecel daawada ee dhageysta Xasan waxa noqday qofkii koowaad ee ka soo jawaaba codsiyadii xagga qalabka musiga iyo walxaha lagu tumayo barnaamijkan xaqiiqada fanka waxa uu ku soo deeqay fiis harmoniga oo ah walaxda codka macaan way walaxda codka wanaagsan la ayuu ku soo deeqay oo yiri warnimayo hadii la hayo ragii tumi laha bahal baa guriga iska taale hadii la ku run yahay balada inay tunmayso yeen kale Xasan Sandheere iyo inta la olog ah baa waan aad baan ugu mahad celinayna
weli barnaamijku qalab kalena wuu u baahan yahay cid kasta oo meelaha ku haysa inta ay sayaxa kaga fadhiisan lahayn waxaan leeyahay garoonka ugu soo deeqa dhammaantiiba kusoo dhawaada barnaamijka waxaan idin odhan doonaa dee noolaheena weliba mataqaana inta weliba labka lagu yaqaano haddii aanu min libaax ilaa maroodi ka soo qaadano ilaa atoorka ugu yar sakaarada way goolaftamaano way caraartamaano haddii alla ku roon yahay way yacnihii wuu caaranayaa baa la ydhahda geeskay rayska ama ciidda ama burka geliya aynu dadka maqashiino mid ka mid a heesaha la yaqaano muusigeeda oo aad muusigo keliya tumaysaan hagaag gacmuhu idinma go-aan hees taariikhiya uurkaa ku tabiya war niman yahow qudhayda rashiid balodha ku gaadhay waxaan ku sigtaba aniga oo holanaya halkii laga geli jiray marka la qaadayo deetana waxaan siri bal yaan xumaantaada haddii aad hees tiraa bala waa mahadsantiin heestan uurkaa ku tabiyaa la idhaha eebba ha u naxariisto dhowaan buu geeriyooday abwaankii hal abuuray wuxuu ahaa ciise warsame samatar alla u naxariisto dadkii qaadayena fanaanka weyn rashiid bullo oo isagu laxanka u sameeyey codka iyo muusiga dalka dhisa ka mid ahaa wuu nool yahay oo weli shaqaalaha wasaaradda warfaafinta somaliland buu ka tirsan yahay allah u naxariisto gabadhii la qaadisayna waxay ahayd farxiye cali way geeriyootay iyadana waxaanu leenahay allah u naxariisto waa heesihii muusigadooda iyo codkooda isa loo qaadayba aadka loo yaqaan waa hagaag aad baa mahadsantihin waxaan soo dhaweynayaa cali gacal guuleed fanaanka barnaamijka xaqiiqada fanka cali goormaa kuugu horreysay golayaasha fanka oo markii kuugu horreysay aad heestay halkeesa aad kaga soo birtay waxaa iigu horeysay 8 kun iyo 1987 way waana xamar teatri xamar maalinta ma heesihii hirgele baad ka qayb gashay maxaad qaaday waxaan qaaday hees la yiraahdo runta lagama boqo cali yaa heestaa yaa halabaro beriga xasan cabdi gooni nin la yiraahdo laxankana waa daa'uud cali masxaf way laxankuna daa'uud cali masxaf waa kaalinta misaad ku gashay marka kaalinta koowaad baad ku gashay waxaan xusuusnahay barnaamijkii inoogu dambeeyey maxamed cali burco buu ahaa halkii ka soo bilaabay oday ka soo kalluumaystay kaalinta koowaad fanaan aan soo marin oo sidan maanta aynu u tumeyno aan loo tumin oo tiyaatarkii aan iman idaacaddii toos looga sii deynin waagaa ugu yaraa ma xusuusan tahay sidii aad u qaaday heesta beriga iyadoo bilaa muusiga haddii aynu ku yar dhufano hadda cali codkiisa khallay aynu yar maqalno maxaa ka mid ah rays cali luxo xoluhu ramaas ikarugaya miya laga raraa meelan roob lahayn ugaalo dhiga aad baad umahadsantahay cali waxaan filaya sidii maalinta aad u heestay 87 maantana waad u heesaysaa cali gacal guuladow sidii barnaamijkeennan ujeedadiisa iyo hadafkiisuba uu ahaa waxaan dadka ugu talagalay bal in heesaha qaraamigeed dadkii lixdamaadkii mid yar qabac aynu dadka uga siino oo dadka hibada u leh qaadi karaya aynu markaa soo marti qaadno xabad heesa aynu ku lafdhawar uga dhigi doonaa barnaamijka colka hareerahana waxaynu odhan doonaa bal hadda ku wada dhufta calina codkiisa wanaagsan aan nagu qaado
jirine waynu wax laga way jirine wanaag iyo xigsi yeelada wanaag iyo xigsi yeelada wanaag iyo xigsi wanaag iyo xigsi wanaag iyo xigsi yeelada علي جعل قولي عود كلا كبر كي أنت عن كحسوسناي هيستن رفتون إلا يدابن شعلهاي فيصل عمر مشتاق الله نحرس من تأد وقارك كشري سقوا عود حبيب له هالكي عن ترجيل السومري ورشري أد يعني وقال شري سيف في عمبو إنه وقال واحد دنيا إن أي نقص رفنات خير دعواني شملت بينو كوسين هيستي يوحي أتومي سين ربع تفاريق برها بلدا إنه ولا أدوق إبراهيم محطتي سياسي المصطفى مع العديد بشر خدمة قلومي هستنا إنه هذا قادم سامبه هو ما حصلتي نك إن دقات فيه بهذا نسوي يعني سنا إنه سنقدر فرس كأنه سمينين ما نقدم برفتون عليهم حد بكا عطها يخليهم حد أبي قلنا تري وينو وحلاقة ما وجه هي وينو وحلاقة مويتيني wanaag iyo xigsi waxyeelada ilaahu war walba waxyeelada wanaag noo xigsi aad iyo aad baad maasantii dhabaantiiba waa waxyaabaha aan yani aad iyo aad ugu diirsado fan iyo sugan nool oo aad qofkii leedahay cali gacal guled fankii saasaad bariyaa ku bilowday goormaad shaqo xagga fanka gashay oo mushaar lagu qorad fanaan أدو إن معلنا المركي وراءها هي سيدا سان ugu soo wareegay gelinta markii aan marka bacdi ayad macallimada ka soo wareegtay deetna fanki baad sidii ku sii gashay deetna ruwaadaha aad wax ka dhigtay ama xafiday maxaad ka xasuntay waxa kamid ah deena masiibo haye ruwaayadaas aan wax ka dhigay ayad wax ka dhigtay markii koowaad ee la dhigay oo hargeysa ahayd hargeyseeda way
waxa igu maqaalaa cali gacal guuleed markii koowaad qofkii xafiday ahaa baa lagu yiri riwaayada masiibada hal abuurkeeduna waa xasan xaaji cabdullaahi xasan gani cali waxaan arkay isaga oo qaadaya adduunyo walaalay adduunyo way badan fartiyo wadnaha isla qabeysta dadkeenu aad ka u yaqaanaan maxamed carraali maxamed baa aad dadku ay u arkeen inta badan oo riwaayada soo bandhigay laakiin raggii wax ka dhigay xafiday buu cali gacal kamid ah cali waynu heestaa waynu qaadi karnaa soo ma waanu qaadi laxkii uu sameeyay horta markii uu xasan gani sameeyay waxaa daawud cali masxaf baa ya luuqda lagu qaaday heesta uu sameeyay ereyadana sangubo ereyadu adduunyo walaalay masugub mise xasan gani ereyadu waxa sangub haye laxankan wuxuu ahaa daawud masiibada marka riwaayada gebigeeda waxaan ku ogaa iyadoo xasan gani sameeyay xasan gani ayaa sameeyay laakiin heesta waxa iska lahaa waa taariikh cusub iyaduna aan ka wada markaa dhawaajino cali gacal guuleed oo adduunyo walaalay qaadaya waa maasantii walaalkii ka dhiga sidii waqalku daa arbuu ku wanaajiya waqtigu ku hiliya walaalkii ka dhiga sidii waqalku daa إدابن لقو قسلا تتكنا تحي روح لوي إدابن لقو قسلا تتكنا تحي روح لوي بعد كلا ويعتاد ويبو عدوكم نغضا أديقات أدميقا فرتا مربو ودي وطلا إدابن لقو قسلا كانت تحير روح لوي إدابن لقو قسلا كانت تحير روح لوي عربات كلا ويعتان ويبو عدوكم وطيقات أدميقا فرتا مربو وري ودلا الدنيا والالي واي بدن وروري ماذا كيريين فرتيو ودنها فرتيو ودنها فرتيو ودنها هاي سقابو فرتيو ودنها فرتيو ودنها فرتيو ودنها هاي سقابو الدنيا والالي الدنيا واي بدن وروري ماذا كيريين فرتيو ودنها فرتيو ودنها فرتيو ودنها هاي سقابو فرتيو ودنها فرتيو ودنها فرتيو ودنها هاي سقابو وذي أنا درس دين في سنة وذي أقول
waanadiyo waaya arag waxaan waanada ka maqal wadeecana darisu dhigin halkiisana wadi aqoon adduunkana wasaciyo wayeer ceelan gure adduunkana wasaciyo wayeer ceelan guray lagu waaray qabay xumo waga ay kumaan wareegay madiga weli admiga ku dila adduunkana wasaciyo wayeer ceelan guray adduunkana wasaciyo wayeer ceelan guray lagu waaray qabay xumo waga ay kumaan wareegay madiga weli admiga ku dila adduunyoyi waalale adduunyoyi waayo badan warware maadaa ku yidhiye fartiyo wadna hayso fartiyo wadna hayso qaboye adduunyoyi waalale adduunyoyi waayo badan warware maadaa ku yidhiye fartiyo wadna hayso cali gaal guleed waxay ka mid tahay heestani heesaha waayaha ka hadla ee dadka aadka u taabta weliba weedhaadana lagu qoslaa dadkana tahay ruux la weyn waa marbuu ku wanaajiya waqtiga kuu heliyaha hees aad iyo aad u qiimo badan aad baan kaga mahad celinayaa xusuustaada wanaagsan iyo sida ay kooxdeena muusigaduba u wada tumeen maxaad dareentaa markaad cali heesayso hees noocaas oo kale had walbaba dareenku heesto aad ay sidato waa inaad muujisaa marka waaye deetana waa in yani de qof waayuhu ku ciiray ay sideedu noqotaa cali su'aal baan ku weydiinaya waqtigan hadda la joogo kooxaha ka jira Somaliland koox ma ka tirsan tahay kooxda ciidanka booliska ka mid ahay booliska ka mid tahay waa kooxda goodir lagu magacaabo adigu miyaad heesaa waa tahay waan ogahay waana cod wanaagsan tahay wax miyaad walxaa miiska wax ka tuntaa laxanka ma samaysa midhaha marmar ma isu geysa ma horta mira shaqul kumali waay aalada la tumana waxaan ka tumaa kabankaas ka jira laxmada ku samayso waay codka lagu qaday heesaa wad samaysa waad isku dayda way cali gacal guleed hees kale oo aad leedahay oo ay xirteenana inala garanayaan aynu dadweynaha u qaadno tumaad inoo soo xulaysaa ha ku daayo moodku waa hees jacayl miya hees jacayla erayadeeda waxay tiriyeen inta Allah naxariiso la yiraahdo nuux warsame geedi abwaan weyn aad mataqana horeyna toddobaad ugu soo maray afkooy Afrika ay hurudo yahay ninkii mataqana way laxka yaa samee Daawud Cali Masx Daawud saaxiib ah dalbanaya Allah Djibouti buu joogaa Daawud markii ugu dambeysay waan salaamina ha ku daayo moodku way bal heestaasna ku dhifan doonaa iyadoo loona tumiyo muusigii codkii wanaagsan cali gacal ay raacdana
الروب ملي مارين عيمولا سيدا ما ييغا كوغيو ميرا الروب ملي مارين عيمولا maasantiin aad iyo aad maasantiin inagaaba wada muusanay muusigadii macaankii ulahay dharankii cali gacal waa hees aad u wanaagsan wali adu gabadh ma leeyahay calo wallahi way nuu xursme gedi baa heesta hal abuuray hees aad u wanaagsan way ahayd sida uu cali u qaadanay waxay marxaad ka tahay cali fanaanimadiisa iyo sida hadii la ku rooyahay uu fanka ku ahaa waxaan iyana aad aan marnaba ilaawi karin oo in looga mahad celiyo iyo in lagu maamuuso iyo in lagu qiimeeyo ay tahay nimanka dhalinyarada muusiga tumaya inta ay tijaabo galaan iyo inta ay heesaha isha soo mariyaan waqti badan ay ku lumiyaan si ay u soo gaarsiiyaan dadweynaha barnaamijkan daawanaya wax dhadhamaya aad baan runtii idinku macalinaya cali gacal maxaa u dambeeyey heesad bariyahan qaado waxaa u dambeeyey way badan yihiin waa tahay mid aynu way dadka haddana indhahooda iyo dhegahoodaba gaadhsiino insha allah haddaan ku huray naftaydii inaadii agarlaato maxaad u haleeli weyday haddaan ku huray naftaydii
inaadii agar laato maxaad u haleeli weyday ankiyo maankibaa ku raacay adiyo jeer ku hiloobay ankiyo maankibaa ku raacay unay hadiyo jeer ku hiloobay amiyo jacayliyo aday hor jooge ankiyo maankibaa ku raacay adiyo jeer ku hiloobay ankiyo maankibaa ku raacay unay hadiyo jeer ku hiloobay amiyo jacayliyo aday hor jooge haddaan ku horay naftaydii inaadii agar laato maxaad u haleeli weyday haddaan ku horay naftaydii inaadii agar laato maxaad u haleeli weyday haddaan ku horay naftaydii inaadii hagar la'aato maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli weyday haddaan ku horay naftaydii inaadii hagar la'aato maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli weyday halqabsiga jacaylkiyo waxaan ku haybiyaaba ibooye halqabsiga jacaylkiyo unay waxaan ku haybiyaaba nafku hilowda ku iraadinaysa ibooye halqabsiga jacaylkiyo waxaan ku haybiyaaba ibooy halqabsiga jacaylkiyo waxaan ku haybiyaaba nafku hilowda ku haybinaysa anoo ku hagarbaxaya haddii adii ili weyday okaydiyaan cidla u heesay anoo ku hagarbaxaya
abdiyadii hili weydo okey miyaan idlaw heesay haddan ku huray naftaydii inaad i hagar la'aato maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli weyday haddan ku huray naftaydii inaad i hagar la'aato maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli maxaad u haleeli weyday maxaad u haleeli waa hagaag yani ma odhan karo yani hees keliya ahayd waxaa la yaabay mataqaanaa meel yaroo aad ka tumayseen mataqaanaa mahiboy markuu odaygu idhahdo babababab yani anaaba yani sidii talow mala jiibsaa mala qaada heestan midhaheeda yaa hal abuuray cali gaclo runtii horta waxaan ka xafiday nin fanaano la yidhaahdo cabdullaahi nuur xaydar cabdullaahi nuur xaydar waana nin muusikista oo fanaan oo tumaa ah intaba haa waa tay hal beej iyo laxankeeda isagaan ka xafiday isaga markaa ayaa sidii fanku aan jiray mataqaanaa markaa aynu ku maamuusaynaa haa beejkii labaadna waxaa ii raaciyey cabdi heybel cabdi heybel amadba ku hagaa ayaa ku raaciyey cabdina waynu salaamana qurbaha ayaynu ka ognahay haddaan ku huray nafteeda maxaad ii haleeli weyday buuri inay gabadhu haleeli weyday wayna haleeshaabay hadii hibo inay saa samaysan ma ahayn waxaan ila tahay dhammaantiinba aniga oo si weyn idinku mahad celinaya in barnaamijka halka aynu ku dabaro oo barnaamijyo dambena insha allah aynu isugu nimaadno barnaamijku xaqiiqada fanka ayuu ahaa fanaanka ugu weyn ee toddobaadkan wuxuu ahaa cali gacal guuleed fanaanka fiisa armunigu waxa uu ahaa ibraahim faarax jamac muujada waad qaad waan ogahay waa runtiis ibraahim ka ku xiga waa in dadka aad tusaado heesay ballanqaad wanaagsan miyir iyo musamac alcadi diyaar buu bishaar saleeman buu ahaa maxamed miyir buu ahaa oo isna cuudka inoo tumayey mustafa macalin caydiid oo isna fiilinta iyo dhexirta inoo tumayey dhammaantiinba intii daawanaysay waa tii aan weliba mahadcelintiisa inaan ku celiyay ninka la yidhahdo xasan aw cali xasan sandheere isna hadiyadiisa aynu ku guddoonnay fiisa armuniga ahayd dhammaantiinba aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinku mahad celinaya waqtigan waqtiyo badan oo la mid inagoo nabada idinkoo nabada insha allah ayaynu isku iman doonaa barnaamijkan ragga u hagar baxay cabdiildab uu ka mid yahay sharbaarka uu ka mid yahay isna maxamed caqli hadi oo isku dubaridi doonaana uu ka mid yahay aad iyo aad iyo aad baan iyagana uga mahad celinayna waqtiga dheer ay barnaamijka siiyeen barnaamijkan kolley sidii caadada inoo ahayd waxaynu kaga bixi doonaa ridmadeena yaraadee muusiga ahayd barnaamijka xaqiiqada fanka oo la mataana barnaamijka madasha halaburka iyo heesaha oo isagu dheer weliba heesa nool oo hortii noogu qaado intaa ha inoo joogo intaa kulmi doono dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu